السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaa maanta nagala soo hadlaya cabdiraxmaan cumar kaahin waa barnaamijkii aada uga barateen magaaladan Ottawa ka sameyn jiray muddo imiga bil iyo bar ku dhow idaacadda afka Soomaaliga CKCU walaalkeen maxamed uu muxuu ahaa farsamadeeda iyo barnaamijka weynoo daadahinayo. maanta waxaan ugu talagalay inaan barnaamijka hadda bixi lahaa aan in yar oo video aan duubo anigoo jooga office-keygii si dadka muxuu ahaa raba inay arkaan amba maalinta idaacadda aan dhegeysan karin u dhegeysan karaa barnaamij yar oo dhowr midho ayaan usoo diyaariyey oo su-aalooyin la weydiiyey oo idaacadda aan laga weydiin laakiin maxaan ku rahdaa off the record yacnihii lagu weydiiyey dhalinyar iyo dad kaloo waayeli bay weydiiyeen ayaan rabaa inaan muxuu ahaa dhowr midhan qaato aan inaga shargareeyo halkan maanta oo ahada idaacadda laakiinse maanta waxaan joogaa anigu office-keygii waana barnaamijka maanta baxaya idaacadda ayaan ugu talagalay inaan muxuu ahaa aan inaga soo gaarsiiyo wixii kale su-aad qabtaan qoraal baad kusoo jawaabi kartaan toos baad la soo xidhi kartaan maxaan ku rahdaa idaacadda amba maxamed amba anigaba waad haysataan horena waan niga sheegnay muxuu ahaa telefoonada iyo adreesyada nala soo xidhi kartaan hadday noqoto email iyo haddii kaleba okay waqti badan qaadan maayo su-aalooyin 3 su-aalood baan soo qaadan oo soo noqnoqda inta badan midi waxay khuseysaa maxaan ku rahdaa korsinta ciyaalka midna waxay khuseysaa muxuu ahaa dabeecadooyinka dadka qaarkood ay ka dareemeen bulshada Soomaalida ta saddexaadna gadaal baan ka sheegi horta labadan baan hadda imigaan soo abaaray dulahaydha ta ugu horeysa aan ka hadalno muxuu ahaa korsinta ciyaalka su-aashaasi waxay weydiiyey min dhalinyara saan rabo sheegay magaca ma magacaabay xitaa magaalada ma magacaabay qofkaasi yahay si ay u noqoto confidential ninka dhalinyartii wuxuu igu yiri maxaan ku rahdaa cabdiraxmaanow waxaad ii sheegtaa waalidka waxa ugu wanaagsan ee ubadkiisa uu siin karo qofka su-aashaasi weydiiyey ma ahayn qof reer leh oo xaas ma laha mana guursan laakiinse waa wiil yar oo maxaan ku rahdaa dhalinyara oo isagu laakiin dee maxaan ku rahdaa su-aashu waxaa laga yaabaa inay xitaa inay khuseyso isaga laftiisa si uu muxuu ahaa waxyaabooyinku isweydiinayo uu jawaabteedu helo iyo wixii saxda iyo wixii qaladka markuu weydiiyey waxa ugu wanaagsan ee waalidku siin karo waa maxay buu yiri anigu markaas jawaabteedu waxay ku lug lahayd yacnihii si professional uga jawaabo iyo anigoo waalidaba labadaba waayo labadu way iswaadafiyaan waxaan anuu waalida aan aaminsanahay amba aan aaminsanaa ayta professionalkuna ay maxaan ku rahdaa hadday tala noqoto ay tilmaamaysaa waxaan ku uri waxa ugu wanaagsan uu qofku siin karaa ubadkiisa waxaa la yidhaahdo jacayl waa jacayl weeyaan love horena waan u sheegay bilowga markaan barnaamijkan bilaabayay in maxaan ku rahdaa waxa ugu muhiimsan qof la siin karaa waa jacayl laakiin marka la leeyahay waa jacayl wax dadka waxaad moodaa inay u fahmayaan wax iska fudud oo waayahay maqalnaya inuu jacayl ay tahay hay so what aba maxaa kale what is the next is filmaya marka waxaan rabaa inaan waqti yar aan qaato arrintaasi markaan leeyahay jacayl ayaa ugu wanaagsan in ilmaha markaad siinaysid aan baad ku soo korisiin jacaylku horta waa maxay jacaylku waxa weeye shucuur ilaahay ku abuuray bini'aadanka inkastoo dadka qaarkood su-aalooyin kale isweydiiyaan oo ay tahay xawayaanku shucuurtaa buu leeyahay laakiin taasi waxa weeyaan mid kale imig ahaan ku koobnaanuteenay waa shucuur jacaylku uu ilaahay ku abuuray bini'aadanka qalbigiisa oo markuu qofku jacaylkaa u dareemo jirku
jawaabooyin muu bixiyaa ay ka mid tahay maxaan ku rahdaa dheecaan ayuu sii daayaa dheecaanka waxaa sii deynaysaa maskaxda ayaa dheecaankaasi amraysa oo sii deynaysa dheecaankaasi haddana midaan soo sheego magaceega waxaa la yidhaahdaa mid dopamine waxaa la yidhahdaa waa dheecaanka farxadda amba happiness-ka ayaa la yidhahdaa oo jirka bini-aadanku wuxuu ku fidaa dheecaankaasi markuu helo wax uu raali ka yahay amba uu ku farxo ayuu ka helaa haddaan nisiyo tusaalooyin waxaa ka mida qofku markuu shopping u tegayo haddaad imiga dadkii noo tago jooga markaad tegtaan moolka lacag fiican aad haysataan aad ku soo iibsataan waxaad tegteen moolkaad tegteen dukaamaad jeceshihiin baad tegteen dharaad jeceshihiin baad soo iibsateen amba kabooyin amba ubadkiin aad soo iibseen haddii muxuu ahaa isla hesheen lacagtii iyo wixii aad jecleed inaad soo iibsateen waa qasab inuu dhacaankaasi jirkiinu uu maxaan ku rahdaa soo saaro dopamiinka waxaadna ka dareemi kartaa maxaan ku rahdaa qofka yacnihi waa happy wuu faraxsan yahay waxaa la dhacayn waa jacaylka ayaa dhahdaa waa meelooyinka laga helay ka mid tahay shoppingkan soo hada waata ugu soo dadka inta badan ugu dhoway arki karaa kuwa kale waxyaabaha kale waxa weeyaan ilmuhu markuu waalidkiisu ku yidhaahdo hooyo islaamta gabadha ku tiraahdo ilmaheega amba aabbuhu ku yidhaahdo aabbo waan ku jecelahay oo afka uga sheego inuu jecel yahay maaha in qalbigu inuu ka dareemee waa inuu afkana uga sheego ilmuhu uu yidhaahdo waan ku jecelahay waayo taasina waxaan ka haysanaa sabab daliil nebiga calayhi salaatu wasalaam oo noo sheegay in oodhaahda afka laga soo saarayo jacaylku inay tahay wax muhiima mar nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo masaajidka fadhiya saxaabihiisii la fadhiya asxaabtii la fadhiya ayay nin asxaabiya masaajidka soo galay asxaabi kaloo la fadhiyay nebiga odhanaya hebel miga soo galay waan jecelahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa odhanaya haddaad jeceshahay miyaad u sheegtay asxaabiga ugu jawaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam maya orodoo ka oo ugu jawaab u sheeg inaad jeceshahay marka halkaa waxaa inooga cad inuu nebigu ina tusayey tusaale waxaa la dhahdo tarbiyad dadka in loo sheego wanaagga qalbiga aad u haysid inaad qofka aad u sheegtid jacaylka aad u haysid u sheeg ayuu ku yiri qofka walaalkaaya oo ilmahaagana maxaad u malayn markaa taasi waxaan inoo cad in kelmadda afka laga soo saaray waan ku jecelahay hooyo amba aabbo ilmahaaga aad ku leedahay inay qalbiga ya ay maxaan ku rahdaa ka soo baxdo afkana lagaga dhawaaqo qofkaad u sheegaysayna dhegihiisaasi ay maqlaan dabadeedna markuu qofkaasi helo jacaylkaasi jirkiisa uun waxaa soo baxaya maxaan ku rahdaa dheecaankaasi aan sheegay ee dopamiinka la dhahdo dheecaanka farxadda dheecaanka jacaylka ayaa la dhahdaa kuwaasba marka kuwaas qofkii waxay habi bay ka dhigayaan dheecaankaasi wuxuu kaluu sameeyaa hadduu yaraado dhibaatooyin kaluu keenaa xanuunada la dhahdo maxaan ku rahdaa la yidhaahdo Parkinson ku dhaca jirka uu qofku maxaan ku rahdaa uu jirkiisa qaadi kari waayo gacantiisaasi xitaa sidaa u qaadi kari waayo waayo haddaan gacanteedaas imiga aan sidaa u furayo shanteeda farood aan sidaa usoo xorayo sidaa u furayo amarku xalkuu ka imanayaa odhanaya sidaa u fur gacantaada amba sidaa u xidh madaxuu ka imanaya maskaxda ayuu ka imanaya dheecaanka weeyaan dopamiinka ayaa odhanaysa mar ayaad fududeynaysa inaad sidaa usii furo laakiin dad waxaa jira gacantooda furi kari waayaan ayaa jira amba gacantaasi qaadi kari waayaan amba lugtu uu qaadi kari waayo dadkaasi dheecaanka dopamiinka ayaa ka yaraada taas waa beel xitaa lugahii qaadi kari waayeen markaasi waa taas waxyaabooyinka ku khuseeya maxaan ku rahdaa xanuunka laga Parkinson la dhahdo laakiin qofka una xanuunkaas sunahayn laakiin dheecaanku ka yar yahay waxaa ku dhaca waxaa la dhahdo depression waxaa kaloo badan dheecaan kaloo ka duwan kaasi marka qofku depression galo oo la dhahdo maxaan ku rahdaa oxytocin la dhahdo ayaa ku badan dheecaankaasi waa dheecaanka maxaan ku rahdaa marka qofka ilmahaaga markuu dhasho xitaa calooshan ilmuhu markuu ku jiro waxaa la yidhahdaa inaad islaamtu marka uurka leedahay
inay ilmaheega caloosheesa u taabato ay xitaa la hadasho amba qur-aanka ay dhegeysiisiiso waayo ilaa sidan muslim ahaan waxaan aaminsanahay ruuxa waxaa lagu abuuraa markuu 6 bilood qiyaas maxaan ku rahdaa muddo markay jirto ilamaa dhowr bilooda ayaa ruuxa lagu abuuraa mar haddii ruuxu lagu abuuray dhegihii uu leeyahay qofku wax ku maqlay caloosha ku jira marka wax wanaagsan maqashi hadday tahay qur-aan iyo cidda dadka muslimka ahayna waxay sameeyeen music bay dhegeysiiyaan ilmuhu uu dareemayaa intaas markaasi aababinta jacaylka waxaa lagaga soo bilaabaa uurgalka xitaa ilmuhu markuu aabiyo hooyadii isku tegayaan intuu ilmo noqon haddii jacayl baa isku keenaya haddii jacaylkaasi naxariis uu leeyahay iyo wanaag ilmahaasi wuxuu u badan yahay halka ka soo baxa inuu noqdo ilmo caafimaad qaba haddii markay waalidku isku tegayaan ay intay isku tegeen marxalad adag ay ku jiraan waxay u badan tahay ilmaha ka soo bixi doona marxaladda adag iyo dhibaatadaas weliba haddii ku jiraan waxa la yidhaahdo maxaan ku rahdaa consumption yani isticmaal maxaan ku rahdaa drog amba ha noqoto jad amba ha noqoto maxaan ku rahdaa khamrad amba wax kale ha noqoto taasina waxay sii xoojinaysaa ilmaha soo bixi doona caafimaadkiisa inuu khatar galo marka abaar ilmaha intaan la abuurin qofka bini'aadamku wuxuu u baahan yahay inuu environment wanaagsan uu maxaan ku rahdaa uu samaysto oo isagu isku hayo oo ah aduu naftaada badbaadi wixii wanaagsan u samee markaad cid doonanaysidna aad guursanaysidna cid naftaada u wanaagsan guurso haddaadna aadna garanayn marka qaarkood soomaalidu waxay tiraa jacayl ku weyn dhalaaya waayo waxay ka dhigan tahay dee adigoona ka fiirsan baad afka u gelaysaa nin amba gabadha marka laakiin maanta dadka Canada jooga waxay leeyihiin fursad ayay leeyihiin ay ula tagaan professional oo ay su'aalaan maxaan ku rahdaa waxay rabaan inay sameeyaan ay ka mid tahay gabadh baan rabaa inaan guursado amba nin baan rabaa inaan guursado waxaan rabaa wixii caawimaad inaad siiso waxaa la yidhahdaa coaching baa la yidhahdaa before the marriage iyo during the marriage ayaa la sameeyaa marka in dad professional ay hiigsadaan baa la qaatay waayo haddii kale jacaylka indhahala ee Soomaalidu tilmaamtay baa afkaad u geli halkan waxaa ka soo bixi doona ubad iyaguna maxaan ku rahdaa khalkhal ku soo koray ubad kale haddana iyaguna khalkhal kala geliya ay sabab u noqdaan marka bulsho dhan oo khalkhal ku jirto ayaa halkan soo baxaysa intaaba ku soo koobay wuxuu ku saabsanayd jacaylka bulshada khalkhalka aan ku gabagabeeyena waxaan furaysaa tayada labaad oo ahayd dhalinyaro iguna weydiiyey oo igu yidhi maxaad ugu wacan Soomaalidu inay qab weyn ay yeeshaan oo ay khatar isaga dhigaan inankii ugu dambeeyey wuxuu odhanayaa ayagoona waxbana aan samayn adduunka la taaban karo nin dhalinyaro xakan ku dhashay weeyaan oo ku koray oo weligiina aan arag Jabuuti wala Soomaaliya meel Soomaaliya wuxuu odhanayaa Soomaalidu maxaa khatar isaga dhigaan ayagoona waxbaba aan samayn adduunka su'aashaas waxaan arkayay su'aal muhiim ah waayo wuxuu su'aalayaa ilmuhu dabeecadooyin uu arkay oo uu cuntameen oo uu arkay inay tahay wax qalada ina kor dhalinyaro oo intaas isaguna maashin 13 jir ah in su'aashaas kale uu weydiiyey uu igu yiri maxaa ugu wacan actually inanka 13 jirka oo magacaabi oo yarkayga weeyaan oo hooyadiina Soomaaliyeed ahayn ayaa iskoolkii ugu horeeyay u tagay Soomaali ay ka dhigato ayuu su'aalooyinkii ugu horeeyay weydiiyay kuwa aaba maxaa Soomaalidu wacan dhalinyarada Soomaalida caynkaasi ay u sameeyaan ay khatar isaga dhigaan faantaarnimo caynkaas marka labada su'aalood jawaabada ka bixinaya waan ka bixiyay oo ahayd qofku haddii uu isfaaniyo ama khatar iska dhigo waa haddii kalsoonidiisu ay hooseyso weeyaan si uu kor ugu soo qaado kalsoonidiisa waa inuu sameeyo waxa la yiraahdo mechanic of defense uu kor u soo kiciyaa si uu muxuu ahaa naftiisii u badbaadiyo waayo qofka kalsoonidiisu ay yar tahay oo hoos dhaadhacsan tahay wuxuu iska dhaadhiciyaa khatar baad ku jirtaa marka wuxuu sameynayaa daafac buu geliyaa khatartaas oo ah isfaani amba khatar iska dhig haddii Soomaalidu noqotona dadka Soomaalida caynka u faana ee yiraahdo khatar baan nahay waxaas baan nahay dee waxay ka turjumaysaa kalsooni li'i ummadda faanaysa haddii la soo hadal qaado xitaa qabiilada qaarkood ay isku faanayaan amba qabiil faanaya haddii la soo hadal qaado taasina waxay ka turjumaysaa psychology ahaan kalsoonida dadkaasi faanaya ay ka maqan marka qofka isku kalsooni ma faano
ummadduna ay ka nabad gashaa. kalsoonidu markaa waa maxay? kalsoonidu waxa weeyaan qof nabadgelyo guntiisa ku qaba, korkiisana nabadgelyo ku qaba. nabadgelyadaasi markaasi waa maxay? waa ta guntu waxa weeyaan qofku inuu isku kalsoonaado uuna isku haysan inuu khatar ku sugan yahay. ta dibadduna waa maxay? waa bulshada kula nool. marka ilmuhu markuu yar yahay hadduu ku soo koro guri waalidkiisu ay dhexdooda is haystaan dagaal oo isxaqirayaan oo ninkanba qof kaloo caayayo amba hooyadu aabbihii ay hoos u dhigayso oo leedahay waxaa tahay loser mashaqaysta iyo waxaasi ku sheegayso, amba aabbuhu sidaas leeg hooyada ku sameynayo uu ku sheegayo waxaa tahay loser oo caayayo waxaas, ilmaha waxaa ku soo koraayay waxaa ka lumisa nabadgelyadii gunta. waayo environmentkii ilmuhu ku soo koray ayaa ah mid dagaal iyo conflict. marka ilmahaasi isku haysta inuu muxuu ahaa meel khatara ku jiro markuu iskoolka tago waxay u badan tahay inuu isaguna ciyaalka kale uu loo macmuulo sidaasoo kale uu ka kale ku sheego waxa matiidiyo hoos baa u dhalacday waxaas. marka kalsoonida iyo ku xidhantahay qofku markuu ummad kale xaqiro. mid kalea jirta oo ku badan dadkeenan muxuu ahaa soomaalida amba reer Djibouti sidaan la dhaqanno dadka madow ee inagoo kala afrikaan maxaan ugu yeedhnaa magacooyin ay ka mid yihiin dhagax. qof bini aadana oo ilaahay abuuray haddaad dhagax aad ku sheegaysid shakhsiyadaada ka turjumaysa wax afkaaga ka soo baxay ee qofkaasi aad ku sheegaysid. taasina diinteena way kuma wanaagsana oo maxaan ku qofka inaad caydid ma habboona diin ahaan. bini aadan ahaanna ma habboona qof bini aadana inaad dhagax aad ku sheegid. xaqirad bay ka mid tahay. marka qofka xaqira waa qof kalsoonidu isku qabaayo ay fog tahay. marka qofka isku kalsoon qof ma xaqiro wuu ixtiraamaa bini'aadnimadiisa diintiisa wuu ixtiraama xitaa diintiisu hadday tahay diin kaloo aan ahayn islaam. anigu aan aaminsanahay islaamku ayuu yahay tii ugu wanaagsanayd. ilaahay wuxuuna faray inaan diimaha kale dadku haystaan inaan nabadgelin aanu caayin. taasina waxay ku lug leedahay kalsoonida ixtiraamka diinta bini'aadanka ayaa ku lug leedahay. markaas waa labadaas su-aalood ayaan muxuu ahaa halkaas ku joojin. ta saddexaad aan rabay inaan ka hadlo marka dambe aan ka hadla hadduu ilahay idhaahdo, laakiin imiga ahaan dhowr iyo tobankaa midhin waxaan ku koobayaa maxaan ku dhahdaa labadaas su-aalood. waa inooyo dhegaysiga dambe hadduu ilahay idhaahdo axadda dambe. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.